jeegada xiiristeedu wuxuu yidhi ama wada xiira ama wada daaye. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo oon xogaa qaadaa dhigo arrinta ku saabsan jeegada oo la xiirto. dhallinyaradu jeegada inay xiirtaan oo qadaad ka xiirtaan oo timaha intaa la xiiro, xaggana la xiiro, gadaal la xiiro, intana la daysto oo dhowr lagu daysto ilaa intaa dhowr lagu daysto. diinteenna islaamku maxay ka qabtaa? jeega xiirashada diinteennu maxay ka qabtaa? waxaan arkayay wadaad maanta ka hadlay, adiga dabcan maalmo dhow buu ka hadlay laakiin aniga maantaan dhegaystay, oo dhahaya haddii la xiiro jeegada waa xaaraam, laakiin haddii la gaabiyo waa xalaal oo kala qaadaya. laakiin diinteennu ama gaabi ama xiir qasaca ama jeega xiirnimadka maxay ka qabtaa? diinteenna islaamka waa xaaraam, siday culummadu inoo sheegeen. in qofku uu jeega xiirto uu dhinaca xiirto waa xaaraam qataca wey. waxaana la yaab leh runtii xaqiiqatan beryahan dambe waxaa soo batay wadaado culummo ah oo dabcan aan mashhuur ku ahayn, dee culummadii soomaaliyeed mayna ahayn, laakiin culummo wax taqaano waxbaratay ah, thaqaafo diineed xambaarsan, masaajiddo imaamya ka ah, social mediaha kule beejaj waaweyn oo ama facebookga ama tiktokga ama youtubeka ama instagramka ama maxaan ku dhahaa twitterka oo kale. waxyaabahaasoo dhan beejaj waaweyn oo caalami ah kule oo madaxda kula hadla, oo dhinac walba kula hadla, oo siyaasiyiinta kula hadla, oo dhinac walba kula leh, ayaa waxay samaynayaan waxyaabo tashwiihaad ah bay diintii keenayaan. wadaadada ka mid oo taqaanaan sheekh cabdi xirsi la dhaho, khayr allah siiyo, wax badan oo khayr ah buu sheegaa, laakiin marar badan bay ushu ka dhacdaa. waxaana ka badan markuu wanaagga sheegayo, laakiin marar bay ka dhacdaa haddana ushu ka dhacdaa. waxaa ka mid a barnaamijkii ribada uu yidhi guryaha lagu iibsado ood garanaysaanoo caan ahaa. waxaa kale oo uu ka dhacday marka uu leeyahay jeegada dhallinyaradu hadday gaabiyaan dhib kuma jirto, xiirashadaa la diidan yahay. intaas waxa weeyaan barnaamijyada aan ka runtii xaqiiqatan aad baan uga xumaaday markii aan arkay kilibka sheekhu uu leeyahay, oo dhallinyaradii fasahaad badan ayagoo markii horeba fasahaadsanaa, laakiin ninka jeegada xiiranaya ama gaabsanaya uu dareensanaa wax baatil ah oo gaalo isku shabihitaan inuu ku jiro, cabsi ay ku jirtay, armi balaaya kugu dhacda ay ku jirtay, hadduu wadaad u bannaynaya helay waa bes. waxay la mid tahay barnaamijkii uu ninkii kishki soo bandhigi jiray ee ahayd heesuhu way bannaan yihiin qalbigayna jilciyaan oo kalay la mid tahay. haddaba waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo culummadeenna soomaaliyeed maxay ka dhaheen markay ka hadlayeen. aynu naqaano dee waa culummada soomaaliyeed waaweyn ee aqoonta diineed looga dambeeyo, ee qof weliba uu yaqaano. waxaan ku bilaabaynaa sheekh maxamed dirir ayaan ku bilaabaynaa xafidahullah. bal wuxuu ka yidhi timaha oo dhinacna la xiirto dhinacna laga tago, dhankay dooniba ha noqoto, dhanka la xiiraya ama dhanka laga tegaye, maxay diintu ka qabtaa? muxuu nebigeennu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam? diinta uu sheekh maxamed dirir noo sheegaya ayaana xaq ah markay isqabtaan isaga iyo wadaadka sheekh cabdi xirsi oo nin culummo soomaali lagu yaqaanaba aan ahayn, ama fiqi ama aqoon diineed. inuu culummo yaho diinta wax ka yaqaano waan dareemaynaa, laakiin nin culummo soomaaliyeed muna ahayn. laakiin sheekh maxamed dirir meel kastoo ay culummadu joogto, ummadda soomaaliyeed joogto, culumu u yahay. anoo yar baan garanayaa isagoo culummo ah, maanta oon qof weyn ahayna waa culummo. bal ila dhegayso wuxuu ka dhahay. can ibni cumara qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu diiday can ilqasac, qascuu diiday qoordiidka, walqasacuna an yuxlaqa waa in la xiiro ra'su sabay, madaxa ilmaha yar, qofka weynina waa la mid, fa yutraka bacdu shacri, timaha qaarkooda waa laga tegaya. maxamed dirir xafidahullah waxa uu ka yidhi jeegada in la xiirto iyo xadiidkii nebiga ee uu u soo qaatay miyayna inoogu filnayn walaalayaal? intaan sheekh hebel baasan yidhi iyo sana lagu fasiray iyo kanaa wax ku fasiray oo qowl ah ama qiil iyo daciif, wadaad laga yaabo xataa ictiqaadaadkiisu inayna sax ahayn la inoo soo guurin lahaa, inaguna aan diin ka dhigan lahayn.
nebi maxamed baa diiday markii lagu yidhaahda inaad adiguna diiddo anigu waxaan aaminsanahay wiilka jeegada xiiranaya ama qadaadka xiiranaya wuu aaminsan yahay wax xaaraam ah inuu ku jiro laakiin shahwadii iyo naftu waxay jeclayd baa ka badinaysa inuu yahay tashabbuhu bilkufaarna wuu og yahay marka qofkaasi weli natiijuu leeyahay maadaamuu waxaan ka cabsi qabo laakiin markaad u xalaalayso uu ka cabsi qabi waayo waa fogaaday qofkaasi waa meesha ay culummadu dhahaan qofka bidcada iyo ahlu bidaca ee waxaan inuu diintu u bannaynaysa aaminsan baa ka khatar badan qofka gaalka a marar badan waxaan ku labaynaynaa sheekh mustafa oo ka hadlaya saraawiisha jeexjeexanee la xidho iyo timaha la bedelo ka hadlaya baliila dhegaysa isagana waa culummada soomaaliyeed ee qof walba soomaaliya aqoonta uu ku tuhmaya diintana ka qaato cabdi xirsi oo kale ma aha waa nin sheekh soomaaliyeeda maalinkan adduunka caqli yeeshay ilaa maalinkan maanta sheekh soomaaliyeed buu ahaa baliila dhegayso maalan diin ahaan ma bannaana timaa badhna in la reebo badhna la daayo badhna la xiiro waxyaabaha qariibka ah waxaa ka mid ah waxay soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen runtii waad ila dhegaysatay sheekh mustafa wuxuu ka yidhi dharkan xunxun ee la xidhanaya ee jeexjeexan xataa sheekh wuxuu yidhi hadda ka hor waxaan xusuustaa nin baa arkay wiil yar oo dhallinyaro oo sarwaal aad u jeexjeexaan xidhan markaasuu wuxuu is yidhi nin akhyaar ah buu ahaaye wiilkan show baahi iyo dhar la'aan baasan u geysay markaasuu yidhi ila ururiya lacag aan ninka dharkii ka bedelnay kelimo sidaas oo kale ah bal hadalkaasoo sheekhu uu riwaayad ahaan dadkuna aad ugu qosleen bal ila fiirso markiiba ammaan noqday yacni gaalkaa markaan joogee maalintuu xiirtana inaad xiirato maalintuu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimo kaljar iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanaya waxaa ka mid a culummada ka hadashay iyaguna sida adag lagu yaqaanaba dee inay masaa-isha diiniga ah qaybaheeda kala duwan hore iyo gadaalba ay u kala si fiican u caddeeyaan sheekheenna weyn ee sheekh umal ama sheekh maxamed cabdi umal bal isna ila dhegayso wuxuu ka dhahay dharka xunxun ee la xidhanaya ee tashabbahu bilkufaar ku jirto iyo timaha oo si xun loo jarto ama qadaad xiir loo jarto ama la gaabiyo ama la xiirto bal ila dhegayso ama fooda dheere ama gadaal dheere ama dhinacyaha xiir waxaasoo dhan wax weeyaan fil haalib waxay ka imaanaysaa tashabbuh bilkufaar waxaa kaloo ila dhegaysataa sheekhan oo taqaanaan oo walaal u ah amasaan ka warhaya ay walaala yihiin sheekh boqolsoon oo mas'alada runtii xaqiiqatan si fiican aad uga hadlay oo u qaadaa dhigay bal ila dhegaysa isagana wuxuu ka dhahay ilaah baa idin abuuray oo idin qurxiyey ee ha isdoorinina alladii axsana kulla shayin khalqah ilaah baa idin abuuray abuuristiinnana wanaajiyey waad ila dhegaysatay sheekhaasina runtii waan soo gaagaabinayaa waxaa kalood ila dhegaysataa isagana sheekha aad wada taqaanaan sheekh abubakar maalin oo qaybta culimmada suufiyada ah ragga ugu aqoonta badan ka mid ah ee runtii la dhihi karo xadiidka waxbuu ka yaqaanaa tafsiirka wuu yaqaanaa aqoon ayna u lahayn wadaadada kale ee suufiyada ah oynu ku naqaana inay fiqiga iyo furuucda fiqiga shaaficiga iyo xoga carabiyada iyo ku fiican yihiin laqmalaqmada laakiin aqoonta aslaynka kitaabka iyo sunnada ay ku yar liitaan sheekh abubakar isagu wuu ku khilaafsan yahay waa nin akademi ah waa nin jaamacaadka ilaa magister ilaa dictora qaatay waa nin xadiidka iyo qaabka uu u soo dhigaa ay aad u shabahdo nin aqoon leh oo culummada salafiyada oo kale raggan aynu hadda soo qaadannay aynu soo dhegaysanay oo kale u dhigma markii loo fiiriyo suufiyada kale bal ila dhegayso isna wuxuu ka dhahay waxa weeye qalbulmawaasiin waxaa ku dhacay qalbulmawaasiin fara'ow alxasana qabiixan walqabiixa xasanan dhallinyaradii waxaa ku dhacay qalbulmawaasiin mawaasiintii bini aadamku waxaan filayaa intaasoo la isku daray oo culummo ah oo
ahlu sunna wal jamaaca isku wada ah laakiin fikirada qaar ku kala tagsan inta kale dabcan isku fikir bay ahaayeen laakiin sheekh abuukar oo ugu dambeeyey baa ka fikir duwan laakiin ahlu sunna wal jamaaca bay isugu imaadaan kulligood oo shiico maaha midkoodna culummadaasi waa culummada soomaaliyeed aynu naqaano oo anigu maalinkan caqli yeeshay runtii kulligood culummo soomaaliyeed bay ahaayeen maalinkan maantana waa culummada soomaaliyeed weeye kulligood waxay inooga digeen jeega xiirnimadka ama jeega gaabsiga ama madaxoo qaybna la gaabiyo qaybna la dheereeyo inay xaaraam tahay sheekh maxamuud shibli yaan waxaan idinku soo dari culummo kale marka walaalayaal wadaad inuu culummada ka mid yahay oo aqoon diineedba aynu aragnay un isagoo social mediaha siyaasad mar ka hadlaya mar masaa'il diineed ka hadlaya marba dhinac u dhigaya oo laftiisa laga yaabo xilligii salafka ninkaasoo kale xataa cilmi lagama qaadan jirin xataa culummadu waxay cilmiga inay ka qaataan diidi jireen ragga madaxda ka agdhow laakiin ninka haddabaad aragtaba inuu siyaasadda iyo madaxda qaar ka mida la safto qayb caayo waad aragteen sheekha khayr allaha siiyo wax badanoo wanaaga buu suubiyaa laakiin runtii mar hadduu qofku arrimaha siyaasadda uu u badan yahay waxaa yaraata tadayunkiisa iyo inuu diinta tawaruca calaalmiiradka waxa lagu magacaabo ayaa yaraata waxaan tusaale idinku soo qaadanayaa sheekha la yidhahda imaamu nasaa-i sheekhiisii la dhihi jiray miskiin ardayga uu u ahaa sheekh imaamu nasaa-i muuna ogolayn sheekh miskiin inuu kitaabka isagoo arkayga ka dhegaysto uu ka wariyo xadiidka nebiga wuu fiijin jiray wuuna caydhin jiray sababtana waxay ahayd inuu arkay isagoo madaxda ka yar agdhadhow aadna u xaraga badan oo labista markaasuu wuxuu is yidhi ninkani madaxda ayuu wax ka helaa uu ka qaataa diinta marka inuu dhibaato wax soo gaarsiiyaa laga yaabaa oo diinta masaa-isha say ahayd uuna u sheegin oo wax badan dhaqaalaha uu dhaafsado saa liajligeed yuunaba agtaada soo fadhiisan ardadaadana yuuna ka mid noqonin wuu caydhin jiray culummadu way daciifin jireen xadiidkiisa qofka ka agdhow madaxda boqorada salaatiinta ka agdhow sheekhannaasayna inagoon aqoonin waa sheekh imaam ah dabcan waa sheekh wadani ah waa sheekh hadalla macaan waa sheekh waxyaabo badan oo fiican leh runtii xaqiiqatan laakiin runtii culummada soomaaliyeed aynu cilmiga ka qaadan jirnay ka mid maaha runtii wuxuuna sheekhu aad ugu caanbaxay masaa'il aan soo ururin doono oon kiliib ka samayn doono oo diinteenna ka hor imanaysa mararka qaarkood sida ribada in lagu gato guryo oo dhowr sano ka hor uu aad arrintaas uga hadlay uu yidhi ha lagu gato waddanka canada ha lagu gato ribada guryaha lagu gato waxaa ka mid ahayd mas'aladii hooyada oo kale hooyada ama sodohda guriga ma iman karto buu isagu ku raacay gabadhii berigii dhoweyd masaa-ishaasa ka mida waxaa ka mid ahayd inay hooyo loo fasax qaadan kara ama aabba loo fasax qaadan kara isagoo ninkii ku ogolayn loo aadi karo masaa-ishaasoo dhan wuu ka hor imaadaa waxaa ka mid ah jeega xiirashada oo u kala qaaday haddii la xiirana inay xaaraam noqonayso haddii la gaabiyo la kala gaabiyo untimahana ayna xaaraam noqonaynin runtii waxaan rabaa sheekha inaan masaa-ishaasoo dhan uga naseexayno waa sheekh aad u khayr badan lianna waxa weeyaan walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa wax badan oo khayr ah baan ku ognahay uu ummadda u soo gudbiyo marka waxaan rabaa walaalayaal waxaad ogaataan culummadii hore miyaad ka maqli jirteen jeega xiir baa bannaan ama waan kala qaadaynaa ama tashabuhu bilkufaar maaha miyaad ka maqli jirteen bal diinta say tahay bay inoogu soo gudbin jireen wadaad hadda cusub haddii uu waxaan inoola yimid dee diin maaha marka saasaan idinku soo gabagabaynayaa waxaan idinku soo gabagabaynayaa oo kale qisadii sheekh mustafa xaaji haaruun baa waxaa la weydiiyey nin baa wuxuu yidhi heesuhu way bannaan yihiin sheekh mustafa ninkii waxamuuna ka sheegin wuxuu yidhi culummada soomaaliyeed waaweyn eed cilmiga ka qaadan jirteen culummada idin ahaydeed aqoontooda ku kalsoontihiin yaa ka mid ahaa miyaad markaasa hebel iyo hebel iyo hebel baa layidhi shariif cabdinuur sheekh cumar faaruuq culummo badan baa la tiriyey miyaad ka maqasheen hees baa bannaan maya bay dhaheen kuwaasi cilmiga iyo diinta ayna ogeyn ee ka hadda soo baxay uu og yahay maxay tahay intaasuba hadalkii kaga gaabsaday marka aniguna waxaan idin leeyahay culummada badan ee codkooda idin soo dhegaysiiyey
jeega xiirnimadka ay u arkeen xaaraam inay tahay diintii iyo xadiidkii nebigana inoo sheegeen ee wadaad aaban aqoontiisaba aynaan aqoonin oo inaan ku kalsoonayn oo siyaasadduna madax martay uu inoo sheegayaa maxay tahay marka ilaahay ha ina sugo isagana ilaahay ha sugo waxaan ka samaynayaana xaaraam inay tahay ha ogaado ha ka joogo ka kalena ha iska ilaaliyo wa shukran lakum